waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay madasha iskaashiga Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ama uu furay khudbadna ku lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha ay ka mid yihiin horumarka siyaasadda laga gaaray Soomaaliya, gargaarka bini'aadanimo iyo sida looga hortagi karo in muxuu ahaa waddanka oo macluul ay ka dhalato, sidoo kale dib u kabashada dhaqaalaha sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha. waxaa kaloo laga hadlay Soomaaliyada cusub iyo iskaashiga looga baahan yahay iyo dib u jaleecid lagu sameeyay shirkii amniga ee shalay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ugu horreyn caalamka iyo Soomaalidu la wadaagay higsiga Soomaaliya ay higsanayso in doorasho ka dhacdo 2020-2021. wuxuu caddeeyey in ay dawladdu ka go'an tahay in la dardargeliyo sidii Soomaaliya marxaladdaanta lagu gaarsiin lahaa. wuxuu aad uga hadlay in Soomaaliya ka go'an tahay amniga iyo xasilintiisa. wuxuu ka hadlay sida ay Soomaaliya diyaarka ugu tahay in dastuurkana la dardargeliyo lana muxuu ahaa cod loogu qaado shacabka si loo ansixiyo iyo in waddankan dhaqaalihiisana kor loo qaado. intaas kadib ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cali Khayre ayaa isna shir gudoomiyay qaybtii dambe ee shirka oo wasiirada warbixinna laga dhageystay. waxaa kaloo warbixin laga dhageystay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. dhammaanna waxay ku saabsanaayeen arrimahan aan ka soo dhawaajinay oo ahaa horumarka siyaasadda laga gaaray, sida wada shaqaynta heerarka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadirba ay uga wada shaqaynayaan arrimaha amniga, arrimaha dib u soo kabashada dhaqaalaha iyo arrimaha kan oo federaalka iyo dastuurka dib u eegistiisa iyo doorashooyinka. sidoo kale wasiirka dastuurka, wasiirka qorshaynta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka haweenka, sidoo kale wasiirka oo ama kusimaha wasiirka oo gargaarka iyo Marwaxlim Yare oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa warbixinno laga dhageystay ku aadan sida Soomaaliya ugu diyaar garoobayso doorashooyinka. intaas kadib ra'iisul wasaaruhu wuxuu fursad siiyey beesha caalamku inay ayagana kelmadooda ka jeedsadaan. waxaa ka soo qayb galay safiirada dalkan Soomaaliya u jooga iyo wufuud ka timid heer muxuu ahaa sare ah oo wadamada qaarkood sida Mareykanka, Ingiriiska, midowga Yurub, Talyaaniga, Jarmalka. wadamo badan ayaa waxaa jira dad mas'uuliyiin ah oo sare ay ka soo qayb galeen. ujeeddadana waxay ahayd shirkii London wixii ka dambeeyey sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaalihii lagu heshiiyey oo dhankii amnigana shalow ahaa, maantana dhankii horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda. intaas ayuu shirku ku saabsanaa. waxaa laga soo saaray warmurtiyeed aad u dheer oo aan hadda halkan lagu wada aqrin karin, 48 ka kooban qodob. isagana waa idila wadaagi doonaa insha Allah. waa mahadsantihiin.